noloshaas quruxda badan waxa burburiyay taariikh madow oo uu soo maray, taariikhdaas oo diiday inay ka hadho. Assalaamu calaykum. Ma taqaanaa cidda kula nool? Iska hubi. Dunida aan ku noolnahay waxa ku duugan siro badan. Qaar ka mida waayaha ayaa daaha ka qaaday, halka kuwa kale ay ku suntan yihiin in ay yihiin su'aalo furan oo aan weli laga salgaarin jawaabtooda. Waayitaanka dadku waa mid ka mid ah siraha ugu yaabka badan ee uu qof walba wax uun ka maqlay. Soomaalidu marka ay qof waayaan ee ay weliba ka quustaan raadistiisa, waxay dhahaan xanfalay ayaa qaaday. Xanfalaydu ma jinba, ma jaamba, ma ummad inaga xoog badan oo aan la aqoonba, ma eedaysana aan la aragba. Alle ayaa inaga og. Dadyowga dunida ku nool sideenna oo kale ayagoo kulmaan dhacdooyin noocan oo kale ah. Waxaan filayaa inaysan kugu cusbeen erayada saddexagalka Bermuda, aagga 1, suunka aamuska, kaymaha Amazon iyo goobo caan ku noqday inaan dib loo arag dadkii galay. Silsiladda lama galaay oo aad ka heli karto dhinaca sare ee muuqaalka iyo sidoo kale qaybta description-ka ayaynu ku soo qaadanay qaar ka mid ah dhacdooyinkan. Khasab ma aha in qofka la waayay ay jirto cid afduub ama dhibaato u geysatay. Mararka qaar waxay noqon karaan kuwo iskood u dhaqaajiyay oo si keliisa uga dhex baxay qoyskii iyo bulshadii ay la noolaayeen, kuwaas oo markii ay waayeen geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay inay raadiyaan walaalkii, wiilkii ama saaxiibkii la noolaa ee ay waayeen. Ma malayn kartaa dhibaatada aad dareemayso marka la waayo qof ka mid ah qoyskaaga oo aad hal guri kula noolayd in ka badan 35 sano? Baqdin, walwal iyo baaritaan dheer kadib markaad hesho ka waran haddii aad la kulanto qiso ka daran qarsoomidiisa. Tani waa sheekada Alex Cooper oo ku noolaa gobolka British Columbia oo ka tirsan dalka Canada. Sanadku waa 1987, da'diisu waa 65 sano jir. Wuxuu ahaa nin haysta nolol wanaagsan, qoys ballaaran oo ka kooban xaaskiisa, carruurtiisa iyo ubad uu awoow u yahay ayuu la noolaa. In ka badan 20 sano ayuu maamulayay ganacsiyo kala duwan oo uu gaar u leeyahay. Shirkad ka shaqaysa nadaafadda ayuu lahaa oo uu muddo dheer ka shaqaynayay. Wuxuuse go'aansaday sanadku markuu ahaa 1968 inuu tijaabiyo ganacsi cusub oo la xiriira delivery-ga. Gaadhi cusub oo uu gatay ayuu macaamiishiisa alaabtooda u gaadhsiinayay halka ay rabaan. Noloshaas quruxda badan waxa burburiyay taariikh madow oo uu soo maray, taariikhdaas oo diiday inay ka hadho. Alex waxa uu ku dhawaaday da'dii howlgabka. Xaaskiisu waxay ahayd qofka xiisaha ugu badan u qaba qorshaha shaqo ka joojinta Alex, sababtoo ah inta ugu badan raggu marka uu xoogga yahay ee uu xamaalanayo waqti ku filan lama qaato qoyskiisa, maadaama saacadaha ugu badan uu shaqo ku jiro. Marka uu soo rawaxana daal kaga soo duldhaco guriga. Waxay ku riyoonaysay inay waqti fiican isla qaadan doonaan, laakiin ma aysan garanayn dhibaatada sugaysa. Markii la gaadhay 4 bishii Abriil 1978, gabadha curad ee uu dhalay Alex oo lagu magacaabo Lily oo ay wehelinayaan saygeeda iyo cunuga ay dhaleen ayaa suuqa u soo adeeg doontay. Jidka iyaga oo maraya ayay Lily aragtay gaadhiga aabaheed oo yaalla dhinaca midig ee waddada. Meeshu waa bridge ama buundo. Waxay odaygeeda ka codsatay inuu gaadhiga joojiyo si ay u salaanto aabaheed. Way soo degtay, laakiin waxay aragtay gaadhigu inuu xidhan yahay, aysan la jirin cid la joogta. Waxay istiri meelahan kama dheera oo jiinka webiga ayuu ku layrsanayaa. Abbaar markii ay baadhay oo ay arki weyday ayay bilowday inay kor u qayliso oo u yeedho aabaheed. Nasiib darro wax jawaab ah ma aysan helin. Shaki iyo walwal wada socda ayaa la soo darsay. Ma laga yaabaa in gaadhigu meesha kaga xumaaday oo uu isaga tegay ayay isweydiisay. Inta aysan wax kala samayn, hooyadeed ayay la hadashay bal inuu joogo ama ay war ka hayso, laakiin maamadu waxay u sheegtay inuusan xalay xataa soo hoyan. Cabsida ayaa u laba jibaarantay. Waxayna bilaabeen in ay midmid u wacaan asxaabtiisa bal inuu xaggooda jiro, laakiin dhammaantood waxay u sheegeen inaysan arag. Lily waxay isu martay goobtii shaqada aabaheed, meelihii uu tegi jiray ee lagu yaqaanay, iyo cusbitaallada waaweyn ee magaalada. Nasiib darro wax raada ma aysan helin. Waddada keliya ee u furan waxay noqotay inay tagaan saldhigga booliska ayna diiwaan geliyaan waayitaanka Alex Cooper. Laga yaabaa in la afduubtay ama dhibaato dil ama dhaawac loo geystay. 30 daqiiqo gudahood ayuu ciidanku soo gaadhay goobtii lagu arkay gaadhiga Alex. Baaritaan iyo hubin kadib waxay arkeen in gaadhigu bad qabo oo uusan cillad lahayn. Gaadhigiisa waxay ka heleen qalabkii kalluumaysiga, jaakad iyo daawooyin uu isticmaali jiray. Arrintani waxa ay ka dhigan tahay inuusan gaadhiga uga degin kalluumaysi iyo wax la mid ah, sababtoo ah qalabka kalluumaysiga ayuu horey u sii qaadan lahaa. 3 casho kadib waayitaanka Alex waxa laga ogaaday inta ugu badan magaalada. Saxaafadda ayaa bilowday inay wax ka qorto si aysan u abuurmin baqdin guud oo dadka oo dhan saamaysa. Boolisku waxa uu bilaabay inuu la bajbaaro baaritaanka Alex. Asxaabtiisa iyo dadkii ugu dhawaa ayay waraysiyo la yeesheen. goobaha ganacsiga, hoteelada iyo maqaayadaha cuntada ayay sawirkiisa la mareen bal in ay helaan cid aragtay ninkan.
nasiib wanaag waxay heleen nin u sheegay inuu Alex maalintii la waayay ku arkay maqaayad aan sidaas uga fogeyn goobtii laga helay gaadhiga. xaaska Alex ayaa booliska u sheegtay markii ay wareysteen inuu mar walba jeebka ku qaadan jiray lacag ka badan inta uu u baahan yahay. waxaa meesha soo gashay aragti sheegaysa inay suurtagal tahay in dhac iyo dil loo geystay Alex kadib markii niman tuuga ay arkeen isagoo lacagta cuntada siinaya maqaayadda. gabadha uu dhalay ayaa iska diiday aragtidan, waxayna meesha keentay fikrad kale oo tilmaamaysa in aabaheed uu biriijka ku leersanayay uuna la kulmay xaalad caafimaad, suuxdin iyo wax la mid ah, sidaasna ugu dhacay webiga oo ay biyuhu qaadeen. labadan aragtiyood midna ma wadato wax caddayn ah, waxaase xusid mudan in badanaa waxaa hadimin baadhistu ay sameeyaan sanaariyo ama sheeko mala awaal ah oo ay ku qiyaasayaan sida ay wax u dhaceen, goobta ay wax ka dhaceen iyo duruufaha ku xeeran dhacdada. qiyaastaas way rumoobi kartaa wayna beenoobi kartaa, laakiin dambi baadhaha wanaagsan xataa haddii uusan helin caddaymo ku filan, saadaashiisu waxay noqotaa mid saxan ama aan sidaas uga fogeyn sida ay wax u dhaceen. maalintii afaraad boolisku sawirada Alex ayay saxaafadda ku faafiyeen iyagoo dusha uga qoray "Have you seen this man?" oo macnaheedu yahay ma aragteen ninkan. intaas kadib waxaa bilowday taleefanno aan dhammaad lahayn, waa dad u badan darawallo oo sheegay inay arkeen qof u eg ninka sawirkiisa la faafiyey. waxay sheegeen inuu taagnaa waddada dhinaceeda uuna gacanta u taagay baabuurta si ay hore ugu sii qaadaan. xogaha la helay waxaa laga fahmay inuu Alex go'aansaday inuu dhuunto oo uu dadka ka dhex baxo, laakiin lama garan sababta ku qasabta inuu sidan yeelo. carruurtiisu ma aamini karaan xogaha cusub ee ka soo baxaya gaadiidleyda. sidee ayay u dhici kartaa in aabbahood uu ka dhuunto oo uu noloshooda ka baxo isagoo aan waxba u sheegin? muxuu gaadhiga ugaga tegay cidlada oo uu gacanta ugu taagayaa dad uusan garanayn? haddii uu baxayo muxuu gaadhiga ugaga tegay daawadiisa? runtii darawalladu waxay arkeen qof kale ayay dhaheen carruurta uu dhalay Alex. adduunka annaga ayuu noogu jeclaa, cidla nagagama tegi karo. ma jirto wax mashaakil ah oo qoyska dhex taalla. shaqaalaha deriska iyo asxaabta iyo cid walba oo taqaanay waa ay jeclayd, mana lahayn wax cadow ah ayay isku qanciyeen qoyskiisu. caqli haddii lagu daro wuxuu haystay nolol fiican oo aysan suurtagal ahayn inuu ka cararo. boolisku wuxuu sii watay baaritaankiisa, laakiin nasiib darro weli ma helin wax raad ah. 1 sano kadib xaaskiisa iyo carruurtiisa uu dhalay waxay aamineen inuusan noolayn, waxayna bilaabeen inay sameeyaan shahaadada dhimashada. si loo sameeyo shahaadada dhimashada waxaa laga rabaa shuruudo badan oo ay ugu horrayso in la helo nuqul ama koobiga warqadda dhalashada. waxay ka baareen dukumentiyada u yaalla guriga, laakiin waa laga waayey. xaalku waxa uu noqday in laga baadho xarumaha dawladda ee lagu kodiyo xogta muwaadiniinta. xaaska Alex Cooper markii ay tagtay xafiiska waxay la kulantay mucjisadii ugu weynayd nolosheeda. waxaa loo sheegay in aysan keydka ku jirin warqad dhalasho oo loo sameeyey qof magacan leh. warqadda keliya ee la helay ayaa noqotay mid ku taariikhaysan 1952, waana warqaddii guurkooda. ninkani ma ahan muwaadin u diiwaangashan dowladda Kanada, lamana yaqaano taariikhdiisa, cidda uu yahay iyo meesha uu ka yimid. warkani kama yaabin qoyska Alex oo keli ah ee booliska, saxaafadda iyo dadkii yaqaanay ama warbaahinta kala socday sheekadiisa ayay fajac iyo yaab ku noqotay. ma jirto cid la mid ah xaaskiisa. 35 sano ayay isqabeen, mana garanayso halka uu ka yimid, cidda uu ahaa iyo halka uu ku dambeeyey midna. 5 sano ayaa ka soo wareegtay, lamana helin Alex, lamana samayn warqadiisa dhimashada oo dawladdu dukumentiyo dhalasho uma hayso. laakiin 27 May 1991 ayaa la helay xog cusub oo ku saabsan kiiskan. magaalada Toronto oo u jirta magaalada ay ku noolaayeen ee British Columbia in ka badan 3500 kiiloomitir, waxaa booliska la soo xiriiray nin sheegay in la la'yahay mid ka mid ah deriskiisa oo lagu magacaabo David Cooper. waxay weydiiyeen sida uu ku xaqiiqsaday in ninkan la waayay. wuxuu u sheegay inuu yahay oday da' ah oo aan lahayn xaas iyo carruur midna, ma haysan wax garab ah, sidaa darteed waan caawin jiray. maalin walba waan is arki jirnay, laakiin dhowr maalmood ma aan arag. koox ka mid a ciidanka ayaa loo diray goobta, waxaayna gudaha u galeen gurigiisa oo cidlo ah. baaritaan kadib waxay ka heleen sawirkiisa. mulkiilaha guriga ka kireeyey iyo ninka la soo xiriiray booliska ayaa sheegay kan inuu yahay sawirka odayga la waayey oo dhabta ku haya ilmo yar. sawirka waxaa la geeyey xarunta booliska, waxaana si degdeg ah looga baadhay kaydka qaranka oo lagu ururiyo xogta dadka laga soo ribood gareeyo saldhigyada. waxay heleen warbixinta nin la waayey 5 sano ka hor, laakiin magaciisu yahay Alex Cooper. marka laga yimaado labada magac oo isku dhow, waxaa jira wax badan oo ay iska wadaagaan. si ay u hubsadaan waxay u yeedheen xaaska Alex Cooper, waxayna tuseen sawirka laga soo helay guriga David Cooper. markii ay aragtay ilinta ayay ceshan weyday, waxayna u sheegtay kan inuu yahay saygeeda oo la waayey 5 sano ka hor. waxay intaas ku dartay in sawirkan la qaaday 1985, 2 sano ka hor markii la waayey Alex. ilmaha uu dhabta ku hayana uu yahay cunuga uu awooga u yahay ee ay dhashay gabadhooda curad.
sidaas ayay ciidanku ku ogaadeen in David iyo Alex ay yihiin isla hal qof, laakiin waxaa ku taagan su'aalaha aan soo sheegnay. maxay tahay sababta uga dhuuntay xaaskiisa iyo carruurtiisa ee uga soo tagay magaaladii uu ku noolaa isla markaana uu bedeshay magaciisa? haddaba 29 May 1991 laba cisho kadib markii loo soo gudbiyay booliska in la waayay David Cooper, wuxuu ku soo noqday guriga uu ka deganaa magaalada Toronto. markii uu furay albaabka wuxuu arkay alaabtii u taalay qolka oo isku daadsan. ma oga in boolis baaritaan ku sameeyay qolkan. wuxuu u tagay dariskiisa si uu u weydiiyo waxa dhacay intii uu maqnaa. kama qarina wuxuu u sheegay inuu booliska la xiriiray gurigiisana sidaas lagu baaray. intaas markii uu maqlay war kale ma sugin ee si degdeg ah ayuu u baxay. inta aysan ciidanku mar labaad soo doonin, boolisku waxa uu soo gaaray goobtii markii odaygu ka dhaqaaqay kadib, kumana aysan guulaysan inay soo qabtaan. sawiradiisa iyo sheekadiisa ayay ku baahiyeen TV-yada iyaga oo dadka ka codsanaya haddii ay arkaan inay la soo xidhiidhaan booliska. 4 bilood kadib, bishii Oktoobar 1991, waxaa ciidanka soo wacay nin sheegay in qofka muuqaalkiisa lagu baahiyay TV-ga uu degan yahay meel dhow gurigiisa oo ku yaala magaalada Hamilton. nasiib xumo, hal tallaabo ayuu ka horreeyay inta aysan boolisku soo gaadhin, uuna ka tegay goobta. runtii waa nin yaab leh. reerkiisa, asxaabtiisa iyo magaaladii uu deganaa ayuu ka cararay. marba guri ayuu ku kiraysanayaa magacaan sax ahayn. booliska xataa wuu ka cararayaa, lamana garanayo waxa uu ka baqayo ama dembiga uu galay. ugu dambayn, dadaal dheer kadib 10 January 1992 ayaa gacanta lagu soo dhigay. ma uusan haysan fursad uu intaas ka badan isku qariyo. wuxuu qirtay sababta uga cararay reerkiisa iyo dowladda labadaba. wuxuu sheegay in magaciisa runta ah uu yahay Albin Arsini, uuna ahaa xisaabiye ka shaqeeya tikitada tareennada. 1948 aniga oo 26 sano jir ah ayaa laygu eedeeyay inaan lacag ka caday xafiiskii aan ka shaqaynayay. waxaa la dhacay hantidii taalle xafiiska aan ka shaqeeyo, waxaana laygu eedeeyay dembi aanan gelin. waxaan isku dayay inaan isdifaaco, laakiin ma jirto cid u rumaysanaysa. sidaas darteed waan ka baxsaday si aan dusha layga saarin dembi aanan gelin. nolol cusub ayaan bilowday. waxaan isguursanay Margaret sanadku markuu ahaa 1952. waxaana la noolaa 35 sano oo ah kuwii ugu wanaagsanaa noloshayda. markii aan gaadhay da'da howlgabka si aan uga fadhiisto shaqooyinka, waxaa laga baahnaa warqadayda dhalashada. dembigii hore ee lee haystay waxaan ku daray inaan la baxay magacaanan jirin oo aan ku samaystay warqadii guurka. waana kiis laygu xidhi karo oo aanan dood ka keeni karin. xaaskayga Margaret marna uma sheegin qofka aan ahay. waxay ii taqaanay Alex. 35 sano ayaana la noolaa. suurtagalna ma ahayn inaan u sheego xaqiiqda. haddii aan isku dayo xitaa ima rumaysanayso. si aan loo ogaan xaqiiqda qofkaan ahay, maalin cad ayaan ka dhaqaaqay reerkayga. arrinta ugu daran ee ay boolisku u sheegeen saaxiibkeen ayaa ah in muddo ku dhow 50 sano ka hor ay gacanta ku soo dhigeen tuugadii xaday xafiiska tareenka, ayna dhammaysteen xabsi ciqaabeedkii lagu xukumay. noloshoodana ay u qaateen si caadiya. halka Albin oo aan dembi lahayn uu noloshiisa ku dhammaystay baxsad, uuna ku noolaa cabsi iyo walwal uu ka qabo goorta la soo qaban doono. waa mid ka mid ah dhibaatooyinka fulinimada. xitaa iskuma dayin inuu ogaado meesha uu ku dambeeyay kiiskii lagu soo eedeeyay. ugu dambayn, noloshiisu waxay u soo dhammaatay si qurxoon. cafis ayaana loo fidiyey, wuxuuna dib ula midoobay qoyskiisa oo uu ka maqnaa 6 sannadood. xaaskiisa Margaret waxay geeriyootay 1996, halka uu isagu u noolaa ilaa 2007. sheekadan waxayna soo xasuusinaysaa nin 37 sano ku dhimanayay meel god ah isaga oo ka fakanaya kiis dil ah oo uusan geysan. markii la soo qabtay 37 sano kadib, wuxuu ogaaday in la soo qabtay dembiilayaashii saxda ahaa. cabsi uu ka qabo xabsiga ayuu naftiisa xabsi u geliyey 37 sano. haddii aad jeceshihiin muuqaal kale ayaynu ka soo diyaarin karnaa dhacdadan kale ee hoos nagula wadaag fikirkaaga. ugu dambayn, waxaynu soo gaarnay dhammaadkii muuqaalkeenna maanta. fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato kanaalka, soo dhowo oo subscribe saar, muuqaalkana like ku sharaf. mahadsanid.